mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska dhismaha hoolka kaydka raashinka ee Somaliland. munaasabadan shaacinta shirkadda ku guuleysatay qandaraaska hoolka kaydka raashinka ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha guddida qandaraasyada ee Somaliland, maarayaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka ee Somaliland iyo shirkadihii ka qayb qaatay tartanka hoolka kaydka raashinka. ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay xubno ka mid ah guddida qandaraasyada ee Somaliland oo ka sheekeeyay maraaxilkii tartankani soo maray. annagu guud ahaan horta ragga waaweyn wada cireystay bidaaraysay muddada soo shaqeynayay ayaanu nahay. hal ku dhigiiguna wax weeyaan ilaahow aqoonnaha nagu cadaami ee xanaha nooga tegin ka maanta waaya biritu helaya ka maanta helaana biritu waayay waxay la tahay taasoo inay noqonayso markaasaan isleenahay ilaahay baa idinku arkaya cadaalad baa sugteen. labaatanka shirkadood muddada baahinta ka socday way soo xareysteen guddiga qandaraasyada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waajibaadkooda qaran bay ka guteen. gudoomiyaha guddida qandaraasyada Somaliland ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay dhismaha hoolka kaydka raashinka ee Somaliland. 20 shirkadood ayaa soo xareystay bakhaarka loo dhisayo kaydka raashinka. 20kii shirkadood Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qosliso. 20ka midun baa helaysay. 7 shirkadood ayaa short listkii u soo baxay. 7 shirkadood waxaa tartankii ku guuleystay shirkadda la yiraahdo Gariyare Construction Company oo ku helay 142,533. shirkadaha kale aan nasiibku maanta aanu siin waxaan guul baan u rajaynaynaa. haday maanta waayeen waxaan u rajaynaynaa nasiib wacan. saasu ayuu ugu xidhan yahay. maareeyaha hay'adda ka hortagga masiibooyinka Somaliland oo goobta ka hadlay ayaa hambalyeeyay shirkadda ku guuleysatay dhismaha hoolkan. waxaan uga fadhinaa in la noo dhiso dhismo tayo leh oo qarankan raandiis u yeesha mustaqbalkana runtii wax u tara. guddida qandaraasyada runtii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha commissionka iyo agaasimaha guudbana aad iyo aad baan runtii hawsha wanaagsan ee nadiifta ay qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. xubno ku hadlayay shirkadihii ka qayb galay tartankaasi oo aan nasiib u helin inay ku guuleystaan ayaa ka hadlay dareenkooda iyo qaabkay u arkaan sidii uu tartanku u dhacay. wallaahi waan ku qanacsanahay 100% sida fiican ee guddiga qandaraasyadu wadaan maadaama ilaa shalay ilaa 3 galabnimo nagu gaadhay sidii ay meeli kormeerka aanu ugu suganay. waxa weeyaan waxaan ilaahay ku qarin cidina ma hesho waana ku qanacsanahay 100% sida ay hawshu u socoto. ugu dambeyn waxaa munaasabada ka hadlay shirkaddii ku guuleysatay dhismaha hoolka kaydka raashinka ee Somaliland oo shirkadda Gariyare Construction Company inaan tayada ugu fiican iyo quruxda ugu fiican inuu dhisi doono hoolka insha Allah bidmillaahi kariim. waxaan ka codsanayaa dhammaan tartamayaasha ee walaalaha ay la tartamayay iyo guddida qandaraasyada qarankaba inay igu soo ducaysaan inuu Ilaahay hawsha aan ku guuleystay inuu Ilaahay igu asturo. Maxamed Faarax Bile, telefishinka Star, magaalada Hargeysa.